maamul goboleedka Jubbaland muddooyinkii u dambeeyay waxaa ka taagnay xiisad siyaasadeed kadib markii ay dhacday doorashadii madaxweynaha ee maamul goboleedka Jubbaland ee uu ku guuleystay madaxweynaha haatan ee mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe haddaba dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin ku liida maamul goboleedka Jubbaland isla markaasina waxay xayirtay isu socodkii dhinaca duulimaadyada ee hawada sare geesta kale dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay xidhay wasiirkii amniga ee maamul goboleedka Jubbaland haddaba bal arrimahaasi si aynu wax uga ogaano maalintii shalay ahayd diyaaradii ugu horeysay ee sida wafdi ee ka qayb galayay caleemasaarka madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ayaa gaaray magaalada Kismaayo arrimahaasi si aynu wax uga ogaano arrimahaasi arrimo kale fara badan ba waxaynu weydiin doonaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamul goboleedka Jubbaland oo hadda si toos ah khadka ugu jira mudane Maxamuud Sayid Aadan mudane madaxweyne ku-xigeen ma maqlaysaa marka hore waa kugu soo dhaweynaynaa telefishinka bulsho aad iyo aad baa mahadsantihiin bulsha tishii iyo howlwadeenada tiifiyada waayay mudane madaxweyne bal ugu horeyn waxaad horta bal nooga warbixisaa maalintii shalay ahayd waxaa soo gaaray magaalada Kismaayo garoonka Cabdalla Xasan magaalada Kismaayo waxaad ku soo dhaweysay wafdigii ugu horeeyay ee ka soo qayb galay caleemasaarka madaxweynaha wafdiga adiga ayaa ku soo dhaweeyay garoonka bal waxaad nooga warbixisaa wafdigaasi u socday caleemasaarka ee aad soo dhaweyseen aad iyo aad baa mahadsantihiin wafdigaas saad la socoteen ba waxay ka soo duuleen magaalada Nairobi waxay ahayn wafdi ballaaran xildhibaano labada aqal ee Soomaaliya oo dhowr iyo soddon ah mas'uuliyiin hore sida madaxweynayaashii koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo galmudug Cabdikariim Guuleed dad hore injineeryaal ahaa aqoon-yahano maamullo dad soo maray darajooyin kala gudbisan iyo waxgarad Soomaaliyeed bay ahaayeen waxay u yimaadeen caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam dhawaan ka qabsoon doona magaalada Kismaayo marka waa soo dhaweynay aad iyo aad baan ugu mahadcelinay waxaan la sameynaa wuxuu kale haddii aan la idmo qabanqaabadana si wanaagsan bay u socotaa mudane madaxweyne diyaaradda siday wafdigaasi waxaad sheegtay adigu maraad ka hadlaysay soo dhaweynta in ay leedahay maamul goboleedka Jubbaland waxaa soo baxaya warar sheegaya diyaaraddaasi in oo iskhilaafsan oo sheegaya diyaaraddaasi inay leeyihiin shirkado gaar loo leeyahay mararka qaar in diyaaraddaasi ay leeyihiin xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya bal horta waxaad noo cadeysaa diyaaraddan yaa leh shalay toole keentay wafdigaas runtii diyaaraddaas sidaan aniga cabsiba waxaa leh dowlad goboleedka Jubbaland hore umaana lahayn laakiin labadii sanaanaba soo dhaafaan ku howlanayn inaan helno gaadiid xagga cirka maadaama hawada Soomaaliya iyo shirkadihii ka howlgalayay ay dowladda Soomaaliya u adeegsatay arrimo siyaasadeed adeegii hawada markaas waxay sameeyeen tillaabooyin kala gedisan saad adigana sheegtay wuxuuna qabateyn xagga hawada ka saarayaan shacabka reer Jubbaland taas oo aan la garanaynin waxay ku mukaysteen in shacab iyo maamul ay dowladdoodii tillaabooyin noocaas ku samayso haddana mas-uuliyadana saaran waxaan ka fikirnay inaanu helno gaadiid xagga cirka maadaama wadooyinkiisu socodka deegaanadan nimanka nabadiidka ah ay caqabad weyn ugu yihiin marka arrintaas oo u howlgallay diyaaradaasu markii hore cid kastaba ha lahaato laakiin annaga ayaa la wareegnay magada ugu dambeyda kadibna sidaas ayay ku timid halka hantida dowlad goboleedka Jubbaland ee Soomaaliyeed ayay maanta ka mid tahay iyo gaadiidka ka shaqayn doona waayahay wararka qaar madaxweyne waxay sheegayaan in diyaaraddaasi ay idin iibisay dowladda Kenya wararka maxaa ka jira arrintaas soomaaliya raad ma lahan waa arrin aad iyo aad daciifnimo u ah waad ogtahay diyaaraduhu waa la iibsadaa shirkadaha Soomaaliyeed shakhsiyaad baa iibsado shirkadaha iibsado ganacsatada iibsato
marka maamul dowlad goboleed ah oo dal iyo dad xukumo inuu diyaarad intaydayo ma aha wax maaragtay macquul ah wax lala yaabana ma aha marka qolyaha saa u bedelayo waxay ujeedada kala yihiin baan garanayna waayahay mudane madaxweyne ku-xigeen bal waxaad ka warantaa dowladda federaalka ee Soomaaliya maanta waxa ay maxkamad soo taagtay wasiirkii amniga ee maamul goboleedka Jubbaland wasiirka amniga wasiirkii amniga sidee ayaad u aragtaan in maanta maxkamad la soo taago wasiirkii amniga ee Jubbaland arrinaan aad iyo aad ugu xunnahay weeye maxkamadna ma jirto nidaamna ma ahan waa niman doostay inay dadka xumeeyaan baa wasiirka gacanta ku dhigay dowlad goboleedka Jubbaland iyo mowqifka ay ka qabtaan oo hore bay uga hadashay shacabka reer Jubbalandna waa muujiyeen maantana shir jaraa'iddan galabta laga qaban doonaayo afhayeenka wasaaradda amniga ka hadli doona aragtida iyo mowqifka Jubbaland ka qabto waxaan u aragnaa arrin xadgudubba wasiirka iyo mas-uulka kale ee maamulka dalaxa ka midka ahaan jiray buulle aadanba loogu gafayo waa arrin cawaaqib xumo reebi doonto waa arrin maanta maalin aan ahayn ummadda Soomaaliyeed ee ogaan doonto wixii ka dhasho wasiirka dambe male waa wasiir dowlad goboleedka Jubbaland u shaqaynayay maxkamadda maanta la joojiyeyna bishii Abriil bay warqad qortay oo dad hore u eedeeyey inay eedooda waxba ka jirin laakiin mudane warqad ayay soo saartay oo wasiirku haystaa laakiin mudane madaxweyne ku-xigeen waxaa lagu eedeynayaa wasiirka oo dowladda federaalka ay ku eedeynaysaa inuu tacadiye ka geystay isaga iyo saraakiisha kale ee waxa weeyaan lala maxkamadeynayaa deegaanada gobolka Gado arrintaasi idinku maxaa kala socotaan xasuuqa lagu eedeynayo horta waa arrin aad iyo aad u yaab badan dowladda federaalka waxaa accountable u ah ama wakiilka dowlad goboleedka Jubbaland ee deegaanadan xukunto wasiirkana uu wasiirka ahaa nimankan maanta xukunka hayaba ma joogin marka ay dad shacab ah ka dacwoodeen xamar maxkamadaheeda oo yiraahdeen wasiirkaas aan wax ka tirsanaynaa kadibna maxkamadihii ama xeerlaayihii guud oo qaranka warku soo saaray ah in wasiirka maxkamadda lagu soo dhaweeyo macquul bay noqon weydo shuruucda way waafaq weyda dalku degsanayd xukunka hadda maanta dadka ragga hayana ma joogin ayaga waxay sameeyeen bishii Abriil bay wasiirka xamar ku casuumeen waxay laabeen ama xireen kiiskii halkaa ka furnaa maxkamadda ay maanta geeyeen baana kiiska xirtay inay eedaasu sal iyo raad lahayn dembigaana wasiirka lagu lahayn faylkaana la xiray warqadaha ay Abriil soo saareen internetyada ku arki kartaan marka mid ay maanta sameynayaan waa mid ay ku xumeynayaan dadka iyo waddanka iyo reer Jubbaland iyo sharafta wasiirkaas ay ku xumeynayaan ma aha wax sharci raad ku leh innaba ha yaraate waana ka hadalnay shacabkana waa muujiyeen dadka reer Gadanaada markhaati ka bishii wasiirka xirnaay dheeraadkii inay maalin walba banaanbax ay dareenkooda ku muujinayaan oo ninka wuxuu ka midnaa wuxuu u ahaa ay ku cabirayaan isay waxay yihiin gardaradii afduubka loo geystay ay la taagnaayeen dariiqyada welina ay la taagan yihiin marka waa cid wax u dhimay mar haddii shacabkii uu maamulayay oo wasiirku ahaa ay dareenkooda ka muujinayaan oo ay bishii oo dhan lugta ku taagnaayeen banaanbax u taagnaayeen cidda ayaga ay u maxkamadeynayaan waa cidde waa wax la yaab leh weeye mudane madaxweyne bal waxaad nooga warbixisaa xafladii caleema saarka ee madaxweynaha xagay maraysaa haatan xafladii saan hore kugu sheegay waa qabsoomeysaa meel wanaagsan bayna maraysaa cid kastoo lagu casuumayna way imaanaysaa haddee horta xaflad iyo caleema saar waa iska un arrin ceremony ama wax sharaf la sameynayo madaxweynaha waa la doortay waana la dhaariyo talada dalka asaa hayo marka xafladii waa la imaanayaa waxaana filaynaa inay maalmaha soo socda dhici doonto si nabadgelyo lehna ku meel mari doonto haddii alla waayo wafdi ayaa soo casuunteen kala duwan oo deegaanada Soomaalida iyo meelo kala duwan idinka imaanayay waxaa xusid mudan inay wafdigaasi ka mid ahaayeen Somaliland oo ay ku soo casuunteen xukuumadda Somaliland iyo xusbiyada mucaaradkaaba sida hore uu ugu sheegay wasiirka warfaafinta ee Jubbaland wafdigii Somaliland ilaa imika xukuumaddu kama haysan hadal inay tagayso iyo in kale laakiin si xubno ku dhawaaqay hore inay u tagayaan oo ay ka mid yihiin
xildhibaano ka tirsan ee baarlamaanka Soomaaliland iyo xubno kale waxay sheegeen maanta garyaqaanka guudna aan idhaahday qaranka Soomaalilandna uu sheegay inaanay ka qayb galaynin Soomaaliland xafladaasi caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland iyagoo ku sababeeyay in sharciga Soomaaliland uu diiday in ka qayb galaan madalaha noocaas oo kala ah sideed ayaad u aragtaan in Soomaaliland ay casunteen ay ka qayb gali weydo xafladda madaxweynaha Jubbaland runtii horta annaga xafladan waxaan maaha xaflad siyaasadeed waa xaflad dowlad goboleed Soomaaliyeed oo xubin ka ah dowladda Soomaaliya madaxweynaheedii loo dhigayo dadkan casuumayna Soomaali uma ahane cid kasta oo maaragtay caalamkan ka mid ah oo ama dowladda ama shakhsiyaad sharaf leh ama organizationno iyo ururo ka jiro oo dhan baan ku casuumay cid loo timaado ka soo qayb gashana waa mahadsan tahay cidda halkeeda noogu soo hambaliyaysa oo raalli ka noqotana way ku mahadsan tahay marka ma aha wax siyaasadeed Somaliland hadii waxay ka mid tahay dadka caalamka iyo dadka Soomaaliyeed oo casuumay ka mid tahay Somaliland waxay ka goosatay Soomaaliya 1991 muddo ku dhow 30 sano ayay sheeganaysay inay tahay dawlad madax bannaan isla marhaantaasina ictiraaf ay ka raadinaysay beesha caalamka Somaliland imika sida ay sheegaan siyaasiyiin mugdiga miisaan ku leh waxa aan gorwaaqsanaba yiraahdeen in ay Soomaaliya naga xidhan tahay gooni sutaagu waxaan ka bilaabaynaa bay yiraahdeen maamul goboleedada ayaanu la hadlaynaa kana dhameysanaynaa arinta madax bannaanida Somaliland waxaanu ku horeeynaa bay yiraahdeen Jubbaland oo aanu arintaasi ka codsanaynaa inay naga aqbalaan bal hadiiba Somaliland ay dhacdo inay idinka codsato inay gooni sutaageeda aqoonsataan maxaa ka yeelaysaan runtii horta Soomaaliya iyo Somaliland iyo Soomaaliya mid bay ahayd caqabad baa timid dib baa dhacay waa la kala shakiyey wax baas ka soo baxay wadankii iyo dadkina waa mid weeye marka in la wada hadlo oo aan xoog isku maqoonin inaan la istikaarin la wada hadlo markay ugu yartahay lagu yiraahdo maxay noo dana wixii noo danahna aan ku tilaabsanaa mowqifkaas ayaan fiirinaynaa marka cid kasta oo ama doon sheeganayso ama aragti kalaba leh dalkii waa wada leenahay dadkani waa mid inaan wada hadalno oo wax walba la tixgeliyo rabitaanka shacabka iyo rabitaanka dadka oo dadka wada hadlaan baan anagu horta dhiirigelinaynaa Soomaaliya iyo Somaliland wada hadal la dhaxmari doono wada hadal la dhaxmari doonaan wax badan ugu bashayn doonaa laakiin annaga haddaan hogaamiyaasha reer Jubbaland nahay maanta mandate uma lihin mandate dowladda dhaxaale dastuurka uu ogolaanayo inay ayaga wax badan aan ugu dambeeyno oo ay ka shaqeeyaan laakiin haddana annagana ummadda Soomaaliyeed mas'uuliyiinteeda ka mid ahay cid walba waxaan ku dhiirigelinaynaa in la wada hadlo la wada fariisto wixii noo dan aan wada sameeyno haddii alla su-aasheeda ugu dambaysa mudane madaxweyne waxay Kenya hadiyo jeeraale dawladda Kenya dawladda federaalka iyo dadad kale oo falaqeeya aan idhaahdee mudane madaxweyne dawladda Kenya iyo Jubbaland hadiyo jeeraale waxa lagu xiriiriyaa la yiraahdaa dawladda Kenya ayaa ka dambaysa Jubbaland gacan Kenya ayaa ku jirta iyada oo doonaysa baa la leeyahay inay dhulka Soomaaliya ay isku hayaan isla marhaantaasina ay xoojiso oo kacdoon ku sameeyso dawladda federaalka iyo dawladda dhexe ku kiciso ayaa waxay soo dhex maraysaa Jubbaland bal horta ummadda Soomaaliyeed ee ku dhageysanaysa waxaad u cadeysaa Jubbaland iyo Kenya maxaa ka dhaxeeya madaxweyne wallahi arrintaas waa arrin la yaab leh weeye nimanka maanta arrinta ku andacoonayo Jubbaland ku eedeynayana Jubbaland oo dhisan oo annaga aan talinayna yimaadeen dawladda ku meel gaar ah dalka soo maray dawlad ku meel gaar ka baxday soo martay waxa Kenya isku haynay maxkamadda ayaga maba geeninba annaga sabab u ahayn wixii isku qabtay in maxkamadda adduunka la geeyo maxkamadda lagu kala baxo yaa horta taalibteeda la yaa sameeyay waay ma dawladda hadda jirtaa samaysay bada dawladihii ka horreeyay dawladda ka horreysay samaysay annaga aan xubin ka ahay annaga maalin kaliya kalamaan hadlay iyo xadud iyo badtoona sababtoo ah annaga waajibkayagana ma aha mandate uma lihin
hadday arrintaas jirtana mar walba oo mas-uuliyiinta iyo arrintaas soo hadal qaaday jirtana waxaan lahaynay maya arrintaas waa heer muqdisho iyo heer nairobi ma aha wax jubbaland iyo kii ay ka wada hadlayaan kenya iyo etoobiya deris baan nahay jubbaland labadaba deris bay la tahay kaashiga la dagaalanka argagixisada iyo deris wanaagga ayaa naga dhexeeyay aad iyo aad marka taasoo dadka soomaaliyeed dad ka dhexeeyay waa maasanta aad iyo aad u mahadsan tahay mudane madaxweyne ku-xigeen kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland dabcan aan idhaahdee madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamul goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan mudane madaxweyne ku-xigeen aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa waqtiga aad nasiisay iyo sida aad nooga aqbashay waraysigaasi aad iyo aad baan u mahadsan tahay adigana aad baan idin salaamayaa soo dhawaada